soo dhawaada saaxiibayaal weli tan iyo markii Donald Trump uu dagaal afka uu ku qaaday koonfur Afrika ayaa waxaa soo badanayay siyaasiyiinta ka hadlayo waxaa ka hadlay xilli hore in kuweyda matasha oo nin siyaasi uga cadaaway si ka tirsan isla markaana ka midna xubnaha aadka u firfircoon maxaan ku yiraahdaa ANC muddo ku soo jiray wasiiro iyo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka koonfur Afrika hadaladiisina waxaa ka mid ahaa in macnaha Donald Trump waxa uu sheegayo wax la mid ah ee South Africa siiso Mareykanka. With this standing threat that, because you passed an exploration act, therefore Trump would withhold funding to South Africa. And I said, let's not mobilize Africa. Let's withhold minerals to US. That is it. If they don't give us money, let's not give them minerals. But the reality, they take our minerals, but say we're withdrawing funding. No, we have minerals in the continent. And therefore we have something that we have. We're not just beggars, but we must just use that endowment for our benefit as a continent. But if as a continent we are frightened, we fear everything, we are going to collapse and will collapse with minerals at our doorstep. So my appeal is that Africa sidoo kale ka hadlay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee EFF Julius Malema ayaa ku tilmaamay inay ahayd gardarro qaawan iyo weliba in meel looga dhacay madax bannaanida dalka koonfur Afrika hadalkii uu sheegay Donald Trump. Ogdiin dabcan Julius Malema dadka wuxuu ka mid yahay aad ku dhaliilo cadaanka iyo reer galbeedka weliba waa dadka aadka xag jiriinta marka arrimahaas laga hadlay sidoo kale hadal uu aad ugu dheeraaday ayuu ku tilmaamay in Donald Trump dhulka ayaga uuna la lahayn sheekadan oo dhan asalkeedii waxayba ka timid in South Africa maalmahan ay soo celisay wixii la dhihi jiray expropriation of land without compensation oo ah dhulka in laga soo celiyo cadaanka iyadoo wax magdhow aysan jirin hadalkaas ayaana hadalka uu daba socdo Donald Trump sida ay leeyihiin dhulkan anaga iskale ay leeyihiin Donald Trump ninka la yiraahdo Julius Malema hadaladiisa balan soo qaadanayna iyo wax ka yiri foreign aid to South Africa and impose sanctions on South Africa for adopting legislation that permits the expropriation of land without compensation and implementing policies that addresses historical race-based inequalities in our country. The statement by Donald Trump is offensive and undermines our sovereignty and is a reminder that our reliance on foreign aid and foreign direct investment surrenders us to the will of imperialists who use money to dictate the economic and policy direction of Africa. We want to make it categorically clear to the President of the USA that we are going to expropriate land without compensation and pursue legislative measures to do so, and no threat will stop us. This misinterpretation of the Expropriation Act, which is a mild Julius Malema cabsada ma aha hadalka ugu habboon ayuu yiri bal wixii ka soo kordho dabcan maalmaha soo socday saacadaha kale ayaan si la falanqeyn doonaa waa hakinayna xogaa barnaamijka Rwanda markaan